dood cimriya jirsatay kulligeenna aan maqalnay qaar ay u arkaan in uu yahay riyo iyo qarow qaar kalena ay u arkaan wax dhacay amaba suurtagalnimadiisa wax ka jiraan wayna sugi laayihiin suurayso adigoo zaman ku dhex sugan kadibna si kadis ah aad u gashay zaman kale maya arrinta saa kuma caddo arrintu waa qadiyad sir ah oo hugan qumuud sheekooyin iyo adillo la yaab leh oo aadan horay u maqal aalad qarsoon oo meeraha dhulka ku dhex sugan iyo ashkhaas ka yimaadeen mustaqbalka ayagoo bini'aadamka uga digayaan dhacdooyinka argagaxa leh bini'aadamka ma u suurta gashay in uu mustaqbalka ku safro ku soo dhawaada barnaamijka waa maxay qaybtiisa saddexaad muuqaalkeena maanta waxaan ku lafaguraynaa aragtida ku safarka zamanka cilmi ahaan waxaa macquul ah inaan dhahno waa sax laakiin tadbiiqi ahaan ama in la fuliyaa waa mid aad iyo aad u adag haddaanba dhihin macquul maaha ama waa mustaxiil intaanan muuqaalka si dhab ah u gelin ha ilaawin inaad ku soo biirtid walaalaha aan ku midownay halkan ee aqoonsaad xalqadan waxaan kaga sheekayn doonaa riya u cad bini'aadamka oo fisir cilmiyeed in laga bixiyana aysan ahayn wax sahlan waxaaba laga yaabaa in uuba ka sarreeya awooddeena maskaxeed laakiin haddana waxaan isku dayi doonaa in aan in soo dhaweeyo inta suurtagalka ah inkastoo uu yahay dood ballaaran waxaan xalqadda inkula wadaagi doonaa wuu in wareerin doonaa muuqaal ay leeyihiin dad ku safreen zamanka kana dhiibeen caddaymo la yaab leh aahaar iyo raadad muran badan keentay xadaarado la yaab leh oo tilmaamayaan in bini'aadamka ay gaareen qaab ay ugu safri karaan zamanka laakiin ay qariyaan qaab sir ah ilaa maanta oo aan joogno iyo sheekooyin laga soo wariyey aalad qarsoon oo dul saaran meeraha dhulka ugu dambeyntii culummada maxay ka leeyihiin suurtagalnimada ku safarka zamanka ku safarka zamanka mid tegay iyo mid soo socdaba ma xaqiiqaba ah ama waa nooc ka mid ah qiyaaliga su'aashan waxay wareerinaysaa maskaxda bini'aadamka oo idil iyo culummada iyo gaar ahaan culummada fiisikiska gaar ahaan markii la soo bandhigay qaar ka mid ah aragtiyaha taageeraya in ay suurtagal tahay ku safarka zamanka iyo muuqaalo la isla dhexmaray oo lagu sheegayo in dadka ay yihiin kuwo ku safreen zamanka oo ka yimid zaman kale muuqaalo dadka neefta ku celinayo oo qof kasta oo arkana ku qasbaya in uu wax iska weydiiyo arrintan ma macquul baa mise hagaag arrintan waxaan isku dayi doonaa in aan ogaano intuu muuqaalkan socdo muuqaaladan sida cajiibka ah ahna xawliga ugu faafeen baraha bulshada wuxuu qofkii arka malaynayaa in ay yihiin dad iska caadi ah oo waddada soconaya laakiin muuqaaladan waxay tilmaamayaan si gebi ahaanba taa ka duwan dadkan caadi maaha tusaale ahaan labadan gabdhood oo aan aragna waxay qarinayaan waaqic qofna uusan weli awoodin in uu hubsado midda koowaad waxay sidataa wax u eg telefoon ama mobayl gacanta lagu qaato waxayna u muuqataa in ay ku hadlaysa waxaa laga yaabaa in aad arrintan u aragto si caadi ah arrinta caadi ayay ahaan lahayd haddii muuqaalkan laga soo qaadan lahayn 1938 miilaadiga ee ku dhowaad 40 sano ka hor markii la ikhtiraacay mobaylka Martin Cooper wuxuu mobaylka ikhtiraacay sanadii 1972 miilaadiga xilli markii ugu horeysay ee lagu fakara ay ahayd 80meedii qarnigii 20aad ama gabadha labaad waxaa muuqaalkeeda keediyey filimka Sirik ee caanka ah ee uu leeyahay jilaaga weyn ee Charles Chaplin sanadkii 1928 waqti ay soo baxaysa sidoo kale ayadoo sidata wax u eg telefoon intaan la ikhtiraacin ka hor sanado labadan gabdhood may ku safreen zamanka cid og ma laha laakiin arrinta la huba ayaa ah in ay kiciyeen mawjado isweydiimo ah oo ku saabsan ku safarka zamanka laakiin waxaa jira tafsiir la yaab leh ee ku saabsan iga hooyo qasadan sanado kadib muuqaalka markuu faafay waxaa YouTube-ka ka soo muuqday comment ka yimid account ay ugu qorneyd Planet Jack asagoo ka jawaabay su'aasha ah haddii gabadha ay ka timid mustaqbalka laakiin isla markiiba commentigii wuu qarsoomay laakiin website-ka Daily Mail waxaa u suurta gashay in uu kaydiyo intuusan qarsoomin ka hor gabadha leh commentigaas waxay sheegaysaa in ay tahay ayadeed qofka muuqaalka leh waxayna sheegtay in ay weydiisay
waxayna ugu jawaabtay in ay ka shaqaynaysay mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta telefoonada. Shirkadda ayaa markaa qaab tijaabo ahaan u soo saartay 5 telefoon ee ugu horreeyay, waxaana loo qaybiyay 5 qof oo ay ka mid ahayd ayeedeed. Markaana waxay la hadlaysay mid ka mid ah culimada macmalka ku sugan ee asagana doorkiisa ka haystay moobilka. Laakiin gabadha wax muuqaal iyo warbixin dheeri ah kamaysan bixin aragtidan. Si degdeg ahna way u delete gareysay commentigeedii. Saa daraadeed lama hubo haddii waxay sheegaysa saxan yihiin iyo in kale. Waxaan markaan soo gudbinaya ayaa ah arrin la yaab dhab ah sidata. Raadad iyo aathaar u laabanaya ilaa kumanaan sano iyo xadaarada dugmeen uusanna ka harin wax aan ka ahayn raadad. Raadadkan waa waxa qarinaya sir wareerisa bini'aadamka ee ku saabsan aragtida ku safarka zamanka. Joorooyinka iyo xaqiiqooyinka aan idin soo bandhigaya ayagana waa kuwa kale oo tusinaya horumar iyo tiknoolajiyad horumarsan ee waayo horeeta jirtay. Su'aasha ayaa ah bani'aadamka xilligan noolaa siduu ku gartay tiknoolajiyadda? Jawaabta ay qaar badan oo dadka ku safarka zamanka aaminsan ay ku siinayaan ayaa ah in uu jiro qof mustaqbalka ka yimi oo u laabtay waayihii tagay oo kadibna bani'aadam ka baray culumta cusub una raray tiknoolajiyadda cusub. Laakiin jawaabtan waxaa diidaya dad badan sababo badan awgood aan si siman u fiirin arrintan. Mithaalka koowaad, boorsooyinka casriga ah ee xadaarada dhulka labada webi ee Ciraaq. Dadka ayaa isla dhex maraya muuqaal laga soo duubay joorooyin iyo sanama u laabanaya xadaarada dhulka labada webi u dhaxeeya ku dhawaad 10 sano ka hor miilaadiga. Sawirradan waxay muujinayaan tamaathiil ama joorooyin tusaya wax u eg boorsooyinka cusub. Sida ay sheegayaan culimada raadadka, boorsooyinka gacanta lagu qaata lama aqoonin zamanka. Arrinka oo kiciyay su'aalo dhowr ah. Waa maxay masdarka boorsooyinka? Miyayse tusinaysaa suurtagalnimada ku safarka zamanka? Riwaayadaha arrinkan fasiraya way badan yihiin. Tafsiirka koowaad, waqtiga dhulka wuxuu goobjeeg u ahaa booqasho kaga timid alieniska oo u keenay boorsooyinkaas bini'aadamka. Tafsiirka labaad, dhulka labada webi waxay goobjoog u ahaayeen booqashada dad ka yimi mustaqbalka, waxayna waqtiga bareen farsamooyinka iyo tiknoolajiyadda casriga ah. Waxa ay bareenna waxaa ka mid ahaa boorsooyinkan. Ama tafsiirka saddexaad ee ayna rajaxayaan culimada raadadka ayaa ah ma aha waxa aan ka ahayn waxa maanta loo yaqaan dalowga ama baaldiga, waxaana loo isticmaalaya si biyaha loogu kala qaata. Sida ay leeyihiin, haysashada dalowga waa arrin dabiici ah, dhulbeereed barwaaqo ah ayna ku badan yihiin biyaha. Waxayna culimada leeyihiin tamaasiisha dalowgan waxaa macquul ah in lagu arka dhul kale oo aan ahayn dhulka labada webi sida waqooyiga Afrika. Cajiib! Tusaalayaashan iyo kuwo kale oo badan oo ka soo tagayba waxaa kulminaya hal su'aal oo ah haddii dad mustaqbalka ka soo safray ay u safreen xadaaradahaas qadiimka ah, laakiin sabab aan annagana maanta aan goobjoog ugu ahayn booqashooyin saa oo kale ah, ma jirto cid awooda in jawaab go'an ka bixiso su'aashan. Laakiin ila dhageysta qisadan la yaabka leh. Qisada wiil dhalinyaro ah oo loogu yeero Nuux oo sheeganaya in uu naga soo booqday mustaqbalka. Qisadan waxay dhacday 2018. 2 sano laga joogaa. Warbaahinta ayaa waxay faafiyeen qisada wiilka Nuux, wuxuuna sheegay in uu ka yimid 2030. Haddana wuxuu kula joogaa 2018. Arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay in uu sheegay dhowr dhacdooyin oo uu bani'aadamka mari doono, asagoo weliba sheegay taariikhda ay dhici doonaan. Marka aad warkaan maqasha, waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo degdegaya ayaa wuxuu yahay in uu been sheegayo. Laakiin arrinta kale ee ayadana dareenkeeda wadata ayaa waxay tahay in uu wiilkan maray baaritaanka beenta, natiijadana waxay noqotay in uu run sheegayo. Markaan waxaad diyaar u tahay in aad maqasho wuxuu Nuux yiri. Wuxuu sheegay in marka la gaaro 2027 la ikhtishaafi doono aalad bini'aadamku u suurtagelin doonta ku safarka zamanka. Nuux wuxuu intaa ku sii daray isla sanadka gudihiisa in bini'aadamku uu gaari doono meeraha Mars, iyo in bini'aadamku uu gali doono dagaalka saddexaad ee adduunka, iyo in bini'aadamku uu yeelan doono hal lacag oo midaysa. Intaa kaliya muusan sheegin. Weliba wuxuu ku sii daray in alieniska ee dhulka soo weerari doonaan kadibna uu heshiis dhex mari doono bini'aadamka iyo alieniska. Wuxuu sidoo kale sheegay in ay jiraan alienis horumarsan oo caqli leh oo inala nool. Nuux wuxuu intaa ku sii daray in goor dhow ee bini'aadamku u suurtageli doonta in ay ku noolaadaan hawada sare
iyo biyaha hoostooda. laakiin ogsoonow Nuux wuxuu sheegay arrimo kale oo badan oo uu sheegay in ay dhici doonaan 2018 iyo 19 sida duufaan baraf wadata oo ah tii ugu weyneed taariikhda bini'aadamka iyo arrimo kale. laakiin maysan dhicin. sidoo kale arrinta la yaabka leh ee Nuux ayaa ah in uu sheegtay in uu jiro 50 sano laakiin uu qaatay kaniini ka dhigaya in uu muuqdo 25 sano jir. maxaad ka leedihiin? bini'aadamka ma gaari doonaa kaniini la dagaalamaya doqnimada? sida muuqata waa in aan sugnaa sanado yar si aan u ogaano jawaabta su'aashaas. laakiin su'aasha intaa oo dhan ka muhiimsan ayaa waxay tahay aawe Nuux maanta waana maxay masiirkiisa? inkasta oo uu sheegay in ay eryanayaan ciidamada Mareykanka. markaan aan u soo laabanay cilmi ahaan, bini'aadamka ma u suurtageli kartaa in uu mustaqbalka ku safro? aragti ahaan waa suurtagal, laakiin waa arrin fulinteeda ay adag tahay, غير macquulna ay tahay. sida uu Steve Hawking ku sheegay buuggiisa Brief Answers to the Big Questions, ku safarka zamanka waa suurtagal cilmi ahaan, laakiin in la tadbiiqiyaa ayaa ah arrin adag. marka la fiiriyo in aanan awoodin samaynta aalad mustaqbalka aan ugu safri karno marka la fiiriyo tiknoolajiyadda caalamka hadda joogo. laakiin waxaa laga yaabaa in ay noo suurta gasho mustaqbalka marka la fiiriyo saadaasha Stephen Hawking oo loo geeyay aragtida nisbiyada ee aan horay ugu soo hadalnay. haddii aadan muuqaalka nisbiyada daawan, waxaad ka daawan kartaa kanaalka. hoos description-ka ayaan kugu reebayaa linkiga muuqaalkaas. warka oo kooban, in aan ku safarnaa zamanka waxay ku xiran tahay bani'aadamka oo helaa aalad ku socon karta xawaaraha iftiinka, mana ahan arrin sahlan. haddaba arrintu ma suurtagal baa mise waa keliya nooc ka mid ah qiyaaliga? ma ogin. waana laga maarmaan in aan sugnaa si aan u ogaano haddii ay arrintu suurtagal tahay iyo haddii kale. wakaaladaha hawada sare ee sida NASA way waafaqayaan ra'yigan, laakiin maaha in la gaarayo mustaqbalka fog ama maadiga fog sida badankeena aan u aragna. noocan oo ku safarka zamanka ah ra'yigooda waxay u arkaan wax aan ka dhici karin, waxaan ka ahayn filimaanta. haddii aan ka soo qaadno in ay suurtagasho ku safarka zamanka noocan ah oo ah in uu bani'aadamku u safri doono maadiga si uu u bedela waxa dhacaya waqtiga uu jooga, waa i'tiqaad si buuxda uga fog xaqiiqada iyo caqiidadeena saliimka ah ee islaamka. maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'ala waa kan keliya awooda in uu xukumo waxa dhacaya mustaqbalka iyo maadiga iyo xaadirkaba. intaan ayuu noogu egyahay muuqaalkeena maanta. waa walaalkiin Cabdifataax Aadan oo in leh sidaa iyo nabadgelyo inta aan ku kulmi doono muuqaalkan kan xiga.